ummad walba mustaqbalkeedu wuxuu ku xiran yahay dhalinyaradeeda ummadii dhalinyaradeedu wanaagsanaata ayaa mustaqbalkeedu wanaagsanaada ummadii dhalinyaradeedu xumaatana mustaqbalkeedu wuu xumaadaa sidaas daraadeed mustaqbalka gobolka mudug wuxuu ku xiran yahay dhalinyaradiisa iyadoo dhalinyarada gobolka mudug ay kaalin lixaad leh ama kaalin mugla kaga jiraan horumarka gobolka iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadgelyadiisa iyo arrimihiisa bulshada ayaan anaguna maamul ahaan waxaanu iska xil saarnay sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa maanta waxaanu qalabkan ku guddoonsiinaynaa ururka dhalinyarada galdogob oo uu ka mas'uul yahay ka wakiil yahay abwaana uu yahay mahad cabdi kulmiye mahad iyo dhalinyarada reer galdogob waxaan kula dardaarmaynaa inay ammaanka iyo horumarka iyo arrimaha bulshada degmada galdogob ay ka qayb qaataan sida dhalinyarada kale ee degmooyinka kaleba dadaalkaas oo kale ay u wadaan guud ahaana dhalinyarada gobolka oo dhan in la isku xiro oo hawshaas uga qayb qaataan horumarinta dhalinyaradana cid walba inay ka qayb qaadato si dhalinyaraduna ay bulshada u horumariso oo iyaduna kaalintii dhalinyarada looga baahnaa ay u qaadato waxaan ku faraxsanahay ama magacaygu yahay qamar cabdullaahi khaliil qamar caraburo waxaan ku faraxsanahay maanta inaan helo gudoomiyihii gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenkii degmada gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenkii saddexdii oo wada joogta inaan maanta helo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad uga naxsanahay maanta oo Puntland dhisan tahay 14 sano maalintii ugu horeysay oo ururka dhalinyarada computer la siinay maanta tahay wax qabadkii ugu horeeyay maanta inay tahay baan ka naxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan maalinta joogo maalintii ugu horeysay inaan joogo waan ku faraxsanahay degmadaas dadka madaxdiisa mudug gobolka mudug afka ay ku hadlayaan iyo urkooda inay iswaafaqaan afka intii laga hadlo wixii urka iska jirin taasna waa waxa maarka dhawaaqo xumaa 2 sano in la joogay anoo yarna meeshan waa ka tagay marka waxa arkaysaa qofkii oo hadlaya madaxda ahaa oo dhalinyaradii haweenkii war u sheegaya laakiin wuxuu ku hadlay iyo calooshiisa isma laha taa marka waxaan leeyahay ka gudoome taas waa inaan ka baxnaa in calooshii iyo afkii isla hadaan baa fiican dhalinyaraduna markaas ay waxay heli kartaa wax sax ay heli kartaa madaxda ugu imid mudug ugu imid waxa kaliya oo maanta amaan iga mudan waa gudoomiyaha gobolka maxamed jaamac waxaan leeyahay aad baad mahadsan tahay 2 sano uu imaanayay waxyaalo badan oo ay waxyaalahaas waa in la qabtaan uu ila qabtay wali laakiin waxa ka dhiman xaafadii garsoor oo deegaankaygii ahayd oo aan ku dhashay oo aan ku koray oo baaba ah wali wax laga qabtay male gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa taa in la fiiriyo ya marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib waxaa jira gaalkacyo hadda xilligan waxaa ka socota mashaariic badan oo tiro badan mashaariicahaas oo loogu talagalay gaalkacyo in lagu horumariyo nooc kasta iyagoo ah gaar ahaan garsoor bay ay awood saaran tahay xilliga hadda aan joogno waxaa laga bilaabay 2 jid laga bilaabayaa jid laabi ah oo gaalkacyo dhowli aan laga sameyn gaalkacyo ama gobolka mudug weli jid laabi lagama sameyn laakiin gaalkacyo garsoor hadda waxaa laga sameeyaa jid 700 mitir ah oo ka bilaabanaya xero dayax dhexdeeda oo laami ka fuulaya oo maraya alxayaad oo maraya raxma oo maraya doomis oo maraya ka dhacaya centerkii garsoor oo laamiga dhinaca koonfureed ah jidkaas waa laami